kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad nagala socotaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dalka Niger ee ku yaala galbeedka Afrika oo shalay uu ka dhacay afgambi military oo ay sameeyeen ciidanka qaranka ee dalkaasi iyagoo sheegay inay xilki ka xayoobiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiyadda loo doortay 2 sano ka hor Mohamed Bazoum. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa inkastoo xaaladda wadanka gaar ahaan caasimadda Niamey ay degan tahay maanta oo Khamiis ah. haddana telefishinka qaranka ee dalka Niger ayaa Colonel Major Amadou Abdurrahman uu kaga dhawaaqay in ciidanka qaranka ee dalka Niger ay go'aansadeen inay soo afjaraan nidaamkii wadanka ka jiray, waxaana uu sheegay in talaabadan ay ka dambeysay si xumaanshiyaha xaaladda amni, maamul iyo mid dhaqaale ee wadanka. Sarkaalkan ayaa hadalkiisa intaa ku sii daray in ciidanku ay xireen xuduudaha dalka isla markaana bandow la geliyay wadanka oo dhan. waxa uu sheegay in shaqada hay'adaha dawladda la joojiyay, dastuurkiina la laalay. Korneelkan ayaa hadalkan sheegay isagoo fadhiya oo ay garab taagan yihiin 9 sarkaal markii uu akhrinayay warqadda warkaasi laga sii daayay oo telefishinka si toosa uga baxay. Hadalkan ayaa yimid maalin huban la'aan ah oo wadanka oo dhan gaar ahaan madaxtooyada Niger oo laga soo wariyay in ciidamada ilaalada gaarka ee madaxtooyadu ay la wareegeen xukunka isla markaana ay xireen madaxweynaha. macadda ilaa hadda madaxweynaha halka uu ku sugan yahay, laakiin madaxweynaha xilka laga xayoobiyay Bazoum ayaa isagoo ciidanku ay ku hayaan madaxtooyada Niamey waxa uu Khamiista maanta halkaas ka soo diray fariin lagu baahiyay barta X horey loo oran jiray Twitterka. wuxuu ku sheegay in guulaha adag ee la gaaray ay ilaalin doonaan muwaadiniinta kuwaas oo aaminsan xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. haddaba dalalka caalamka gaar ahaan kuwa gobolka ayaa aad ula socda dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay wadanka Niger. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa saxafiyiinta ugu sheegay isagoo ku sugan wadanka New Zealand waxaan la hadlay madaxweyne Bazoum subaxnimadii hore ee saaka, waxaana uu cadeeyay in Mareykanku uu si adag u taageersan yahay inuu yahay madaxweynaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Niger. waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo sii daayo, ayuu yiri Anthony Blinken. waa afgambigii 7aad ee ka dhaca dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika tan iyo sanadkii 2020 iyadoo arrintan ay ku lug lahaayeen ciidanka militariga dalalka dariska la ah ee Burkina Faso iyo Mali ay horey ciidanku afgambi uga sameeyeen iyagoo xukunkii ka tuuray madaxweynayaashii wadankan ka arriminayay. arrintan waxa ay sii adkeyn kartaa cabsida iyo khatarta ku soo wajahan gobolka galbeedka saxaraha ku yaala, halkaas oo ay ku sii kordhayaan kooxaha hubeysan ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo Daesh. Niger waa dal aan bad lahayn. horey waxa uu gumaysan jiray dalkan Faransiiska, waxaana hadda uu yahay dalkan xulafada ugu weyn ee reer galbeedku ay leeyihiin. aad ay u cambaareeyeen sida ay ku sheegeen qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Faransiiska. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu si aad u cambaareynayo dadaal kasta oo lagu doonayo in xoog lagu qabsado laguna weeqo dowladnimada, dimuqraadiyadda, nabadda iyo xasiloonida dalka Niger. waxa uu sidoo kale ku baaqay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh arrintan inay xaqiijiyaan ilaalinta nidaamka dastuuriga ee wadanka. Faransiiska ayaa sidoo kale cambaareeyay dhammaan isku dayga lagu doonayo in xoog lagula wareego awoodda Niger. horaantii Arbacadiina Midowga Afrika iyo Ururka Dhaqaalaha Galbeedka Afrika ay ku bahoobeen ee ECOWAS ayaa ku tilmaamay tallaabada ciidanka militariga ay kula dhaqaaqeen madaxweyne Bazoum mid lagu doonayo in lagu carqaladeeyo dimuqraadiyadda iyo siyaasadda dalka Niger. 2 sano ka hor ayaa ninkan xilka uu qabtay isagoo si dimuqraadi ah xukunka ula wareegay, waana markii ugu horeysay oo tallaabadan ay dhacdo tan iyo markii Niger xubnimada ka qaadatay dalka Faransiiska sanadkii 1960. madaxda gobolka ee arrintan sida weyn ugu lugta leh waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Nigeria Bola Tinubu. bishan ayaa loo doortay gudoomiyaha guddiga ECOWAS. waxa uu sheegay in hoggaanka ECOWAS ay markaasi ka soo horjeedaan afgambiga dalka Niger. waxaan si cad u cadeynaya dhammaan wixii ka dhacay dalka Niger inaan ka soo horjeedno
oo gobolka ECOWAS dhammaantood ay kasoo horjeedaan ayna jecel yihiin in dimuqraadiyadda ay sii waarto. haddaba madaxweynaha dalka dariska la ah wadankan ee Benin, Patrice Talon, ayaa galabnimadii Arbacadii waxa uu ka duulay dalka Nigeria isagoo suxufiyiinta kula hadlay magaalada caasimadda Abuja, halkaas oo kula kulmay hogaamiyaha xilka meertada ECOWAS haya Tinubu, waxaana dabadeed uu u safray dalka Niger si uu soo xalliyo khilaafka dalkan ka cusub. Talon ayaa suxufiyiinta u sheegay isagoo ku sugan caasimadda dalka Nigeria in ay ku celcelinayaan in dastuurka dalka Niger lagu dhaqmo ayna ka soo horjeedaan wax walba oo lagu wiiqayo nabadda iyo wada noolaanshiyaha dalkan. Bazoum ayaa waxa loo arkaa nin saaxiib la ah dalalka markaasi reer galbeedka, iyadoo arrintan ay sii wiiqi karto dadaalada reer galbeedku ay ku doonayaan in ay ku caawiyaan dalalka saxaraha Afrika ka hooseeya. maantana waxaa la filayaa in shir Afrika iyo Ruushka uga furmaya magaalada St. Petersburg looga hadli doono xaaladda dalka Niger, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlinka. dhinaca kale, dalka Niger waxaa ka socda banaanbaxyo iska soo horjeeda qaar lagu taageersan yahay go'aanka militarigu ay qaateen iyo kuwa looga soo horjeedo tallaabada xilka looga xayuubiyey madaxweyne Mohamed Bazoum. madaxweynahan ayaa waxa uu ka soo jeedaa dadka Carabta ee laga tira badan yahay ee ku nool dalka Niger. wasiirkiisa arrimaha dibadda ee dalkaasi Hassoum Massoudou ayaa ku dhawaaqay inuu si kumeel gaar ah u hayn doono xilka madaxweynaha, isagoo carabka ku adkeeyay in awoodda sharciga ee dalkan ay sii shaqayn doonto. mar uu la hadlayay janaalka France 24 la yiraahdo, waxa uu sheegay in madaxweynaha uu caafimaad qabo, waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay wax ka soo horjeeda dimuqraadiyadda.